ninkii gubay nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka ayaa toogasho lagu dilay. Intaan u guda galinna warbixintan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. Ninkii sababay in ay adduunka oo dhan ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kadib markii uu gubay nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka waliba goob fagaaraha uu ku gubay ayaa toogasho lagu dilay sida ay sheegtay ama ay warisay warbaahinta dalka Sweden. Salwan Mumika oo 38 jir ah ayaa la dilay fiidnimadii Arbacada kadib markii lagu weeraray gurigiisa. Sida ay tabisay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Sweden, ninkan ayaa horay waxa uu gubay nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka isaga oo ku horgubay masaajid hortiisa sanadkii tagay ee 2023. Taasi waxa ay dhalisay dibadbaxyo waaweyn oo ka dhaca dalka Sweden oo dhan. Sidoo kale daafaha dunida qaybo ka tirsan ayaa waxa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ninkan. Mumika iyo qof ay wada noolaayeen ayaa lagu eedeeyay oo la xiriiriyay in ay ku lug lahaayeen in ay gubaan nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka ah sida ay ku eedeysay oo ay dacwadaas ugu soo oogtay maxkamadda sare ee dalka Sweden. Khamiistan ayaa la sugayay in maxkamad la soo saaro ninkan iyo sidoo kale ninkii xiriirka la lahaa ee lagu tuhmayay in uu falkan qayb ka ahaa, balse waxaa la sheegay in ninkii kale uu geeriyooday oo maxkamadda ay dib u dhigtay dhageysiga kiiskan ninkan loo haysto. Hase ahaatee wax badan ma uusan ka dambeyn saaxiibkiisii la xiriirinayay in ay wax iskala ogaayeen in la gubo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah nuqul ka mid ah markii fiidnimadii Arbacada lagu weeraray gurigiisa. Ninkan ayaa isaga oo taagan maxkamadda horteeda ayaa si bareera waxa ugu dooday in ficilkiisan uu ku gubay qayb ka mid ah kitaabka Qur'aanka ay ka tahay in uu neceb yahay diinta Islaamka. Taasi beddelkeedana uusan nacbayn dadka muslimiinta ah balse uu doonayay in uu ka ilaaliyo dadka reer Sweden fariimaha Qur'aanka Kariimka ah sida uu isagu ku doodayay. Booliska Sweden ayaa waxay u ogolaadeen dadkii mudaharaadayay in ay sii wataan mudaharaadkooda ilaa inta ninkan maxkamadda la soo taagayo. Ninkan intii uu noolaa fariimo badan oo isdaba joog ah oo hanjabaadyo u badan ayaa loo dirayay isaga oo samaystay ilaalo gaar ah si ay u ilaaliyaan uguna ilaaliyaan dadkaasi hanjabaadda u geysanaya in ay dhibaateeyaan ama ay nafta dhaafiyaan. Balse ugu dambeyn fiidnimadii Arbacada ayuu ku baxay gacanta dadkii u hanjabi jiray mid ka mid ah. Waxaase la ogeyn ilaa hadda in ninkan ay weerareen koox dad ah ama in hal qof oo kaliya uu weeraray. Guriga uu deganaa ninkan oo ku yaala magaalada caasimadda ah Stockholm ayaa waxaa la sheegay in hal mar laga maqlay rasaas darandoori u dhacaysa kadibna dhaawac culus uu halkaasi ku soo gaaray Mumika. Waxaana la sheegay in ninkan markii hore loo qaaday dhaawac ahaan oo cisbitaalka loo geeyay balse uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray.